أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين شعبك ومد الصوماليات ملك استوى الدنيا كجوكتان وصالح آذن راقي شيخ عبد الرحمن وآذو عريسان أنا كحناقسن متقانا فلكي فوشح وما شلت ولا كدا عي مقدسو أنا وحن لنا هاي هدينو نهاي دلنيرت أمد الصوماليات وان دلعينينا وينو كسو هرجينا وينو كحن هاي أنا متقانا إني متقانا شعب أمد الصوماليات قرية لسكو ديبو ومتقانا أنا كينيا متقانا إمارات أي متقانا أنا قرية سوكين ديبان أي ديجينا كجناعسدان أنا وحن فرين أدريا أو فرين أذك متقانا أدريا مدن مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو مدن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أنا مدح نبض سويد فهد ياسين أنا عيدا كحوق الدلك ومد الصومالية جنرال أنا أضواء أنا عيدا كبوليس أنا وحن كعصنا سيدا أقول نقصيها بدن رجي شرط ولا كسر مقدم محلها السوشيال ميديا أو شعبك ومد الصومالية ليجود الدادية ربينا هدي عن لجوه تجين ربين إني متقانا أن قصار أنت كبدن إيجيستان أن ضدك كدم بي ضدك سوء أبابولي إني متقانا الهركين ومحلها محكمة أن واتريتر ويان وحال لها الصومال وحال لها وقائن الوطن من ويان وحلنا هاي أن عيدا كبوليسكا أن عيدا كنبض سوجدا عيدا كحوق الدلك ومد الصوماليات سيدا ugu dhaqsiyaha badan waa inay mataqaana hubka dhigis lagu soo biyo Muqdisho oo guri loo galo waxaanan mataqaana ciidanka booliiska oo aan ka ahayn ama ciidanka xooga dalka ama nabad sugidda cid allaale cidii lagu helo hub waa al-shabaab cid allaale cidii lagu helo hub Muqdisho joogo waa al-shabaab waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo gudoomiyaha gobolka banaadir ee Umar Finish sida ugu dhaqsiyaha badan inay mataqaana Muqdisho guri xaafad maxallahay jiro inay loo galo hub ku dhigis lagu suubiyo Muqdisho nabad ma aha wixii aan shalatoola aan arkayna waxaan ogolaan karna ma aha waxaan ka xunnahay oo ama hoog ah inay mataqaana Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ay magac madaxweynenimo ay ka wataan shacabka ummadda Soomaaliyeed dhiigga ummadda Soomaaliyeed ka ganacsanayo creator mataqaana u shaqeeyo Uhuru Kenyatta sirdoonka mataqaana Nairobi waxaanu leenahay hadaynu nahay dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed waynu daleeceynaa waynu ka soo horjeednaa waynu ka xunnahay falkaas qoysha xuna oo mataqaana shacabka ummadda Soomaaliyeed dhiigooda loo ganacsanayo مدن مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو مدن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي محلها قدوميها قبل كبنادر عمر فينش وحان إذا كعصنا مقدسو إني متقانا حافظ لوغلو ومتقانا روحي لوحي لو هب شرع الدراء وعلى الشباب وإني متقانا لكينا محلها شرعي الهرقية ومتقانا عقابته مذنية هاي عقابته متيصلة مرسية waxaan leenahay shacabka ummadda Soomaaliyeed
waxaan u maleynaynaa intaas inaad ka caqli roon tihiin waxaan u maleynaynaa intaas inaad mataqaanaa fiican tihiin laakiin waxaynu ogaanay inay mataqaanaa ma $6 baa dhiiggiina mataqaanaa lagu gadan karaa shacabka ummadda Soomaaliyeed su'aal baa idin hayay ma $6 baa dhiigga ummadda Soomaaliyeed wiilka mataqaanaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ah ma $6 ku bedelnaysaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay baa mataqaanaa muqallibul quluub ah ilaahay baynu waxa ka cabsanaynaa inuu mataqaanaa quluubteena uu noo bedelo calankan waa babanayaa insha Allah Soomaaliya midnimadeedu waa muqaddas Hargeysa waa caasimadda labaad ummadda Soomaaliyeed waxgaradka uu istaagi doona insha Allah waxaan ka codsanaynaa ciidanka booliiska waxaan ka codsanaynaa ciidanka nabad sugidda waxaan ka codsanaynaa ciidanka xoogga dalka inay Muqdisho magaalo nabdeed oo nabdoon inay laga dhigo sidii looga dhigi lahaana anaga hadda idin sheegayno anagana mataqaanaa idin tilmaamayno waa hubka dhigis in lagu suubiyo shacabkan wada maryaanta ah wada dhiigicabka ah oo mataqaanaa xaaraanta ku naaxay waxaynu leenahay mataqaanaa rule ama maxallaha law and order waa in mataqaanaa dib loo soo celiyaa Muqdisho iyo mataqaanaa dhammaan geyiga ummadda Soomaaliyeed ooda dhacmeed say u kala koreeyaan loo kala qaadaa waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hadduu kilibkan uu ku soo gaaro ama aad mataqaanaa dadka ka agdhow ay ku soo gaarsiin karaan waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan Muqdisho inaad mataqaanaa hubka dhigis lagu suubiyo oo mataqaanaa operation mataqaanaa hubka dhigis ah lagu dhawaaqo oo mataqaanaa la galo xaafad guri iyo maxaa la dhahay mataqaanaa meel alla keeno meesha ku dhuumanayaan qaa'imul wadamiintaas ka soo horjeedaan inay Soomaaliya cagaheedu ku istaagto waxaynu ognahay shalay toole banaanbaxay shalay toole in laga soo maleegay Nairobi oo mataqaanaa aysan dan iyo masiir aysan u haynin shacabka ummadda Soomaaliyeed ay masiir u hayaan Nairobi ragga guriyaasha ka dhistay Nairobi ragga mataqaanaa ganacsiga ku leh Nairobi ayaa ka soo horjeedo Muqdisho bilicdeeda in dib loo soo celiyo ka soo horjeedo mataqaanaa inay magaalo nabdoon ay noqoto Muqdisho haddaynu nahay dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed haddaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed kuwooda waxgaradka ah waynu ka soo horjeednaa 30 sano kadib Muqdisho kuma jiri karto burbur waxaan ka codsanaynaa shacabka ummadda Soomaaliyeed inay dawladooda garab istaagaan dawladdiina waa lagu soo duulay oo aad ogtiin waxa ku soo duushay mataqaanaa maamulka Somaliland waxa ku soo duulay maamulka Jubbaland waxa ku soo maqan maamulka Puntland waxaan idin leenahay shacabka reer Banaadir nabadda gacmihiina ku jirtaa dawladdiina garab istaaga tuuga qaa'inka aad ogtihiin ha u sacabatumina ninka dhiigiina $6 siisanayo ha garab istaagina waxaan leenahay gool iyo gobonimo calankaas cid mataqaanaa wax yeeli karta ma leh midnimada Soomaaliyana waa muqaddas Soomaaliya waa mid insha Allah Kenya waxa ay ku jirto haday sii wado waa wadadii Gaaris mataqaanaa Muqdisho looga talin lahaa haduusan Ilaahay ma yadhin waxaan leenahay gool iyo gobonimo u soo hoyatay shacabka ummadda Soomaaliyeed aad baynu ugu faraxsanahay maxallahay ka hortagidii mataqaanaa laga hortagay mataqaanaa qasaarihii ba'na ay mataqaanaa soo maleegeen midowga musharaxiinta waxaan leenahay madaxweyne mar labaad mudane Farmaajo dhiig muusan daadinin dhiig kursi muusan ku raadinin waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud waa khaa'in waa tuug waa pim waxa lahaa waa gawaad Sheekh Shariif ka daran waa ragga dhiigeen rabaan inay ka ganacsadaan wuxuu dhahay Xasan Sheekh Maxamuud sirjaraa'iduu qabtay wuxuu dhahay mataqaanaa shacab mudaharaada ma shacab mudaharaada bay ahaayeen raggii mataqaanaa BKM-ka iyo AK47 ay xuryaamiinta soo howlgeliyay mooryaantii mataqaanaa intaasoo sano dhiigi cabka ahaayeen shacabka ummadda Soomaaliyeed dhiigooda mataqaanaa ku nasiibsan jiray waynu ognahay Muqdisho inay soo martay ruuxii bac madow wato ku nasiibsan in la dhihi jiray hadda waynu ognahay mataqaanaa inay kala dambeyn iyo cadaalad jirto inkastoo iska tabar yar tahay laakiin waxaan leenahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
iyo mudane ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxa nabad sugidda fahad yaasiin madaxa ciidanka xoogga dalka generaal odowa iyo madaxa ciidanka booliiska sida ugu dhaqsiyaha badan balaan la imaada muqdisho inaad hubka dhigistaad ooga dhigi lahaydeen falankeeda inaad gashaan waxaan leenahay cid allaale ciddii ee mataqaanaa ay la gasho shalaytoole wixii mataqaanaa la soo maleegay ama abaabulkaas ka dambeeyey waa inay sharciga la hor keenaa mas-uuliyaddii wixii khasaare shalay ka dhacay meeshaas ayagaa ka mas-uul ah waxaynu ognahay inaysan rabin muqdisho oo nabad ah waynu ognahay inaysan rabin soomaaliya oo mid ah waynu ognahay inaysan rabin calankaas oo mataqaanaa mar labaad boorka laga jafo waxaan leenahay guul iyo gobonnimo u soo hoyatay dhallinyarta ummadda Soomaaliyeed barafkan maanan joogi lahayn muqdisho ma leh baraf gacmaha ay soo koobaya hadda qabow daraadiis haddaynu joogi lahayn dalkeeni hooyo mataqaanaa ay nabad noo ahaan lahayd maanan dhex joogeen barafkan maanan joogi lahayn barafkan ay noo dheer tahay carruurtii oo mataqaanaa laga hadlayo ay ku dheer tahay gaalnimo iyo kaafirnimo waxaan leenahay shacabka ummadda Soomaaliyeed kaca oo dhiig isku yeela gacanta dhulkeedii ka taashaa waan ka xumahay inay mataqaanaa dhiigga ummadda Soomaaliyeed oo $6 uu marayo mataqaanaa $6 waynu maqlaynay social media aynu ka arkaynay meeqa ku tuura $6 hay qoriga qaado waynu arkaynay waynu ka soo horjeednaa waynu daleeceynaa waynu ka xunnahay insha Allah waynu la dagaalameynaa waxaan ka codsanaynaa ciidanka xoogga dalka sida ugu dhaqsiyaha badan inay mataqaanaa muqdisho xaafad u galaan hubka dhigis in lagu suubiyo shacabkan wada mooryaanta ah shacabkan wada mataqaanaa dhigicabka ah shacabkan wada mataqaanaa xaraan kunaaxa ah oo haba yaraatee mataqaanaa aakhiro iyo wax ay ka cabsoonayaan aysan jirin waxaan leenahay faman yacmal mithqaala darratin khayran yara waman yacmal mithqaala darratin sharran yara soo waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed kaca oo mataqaanaa gacmaha halis qabsado oo calankiina badbaado u baahan yahay sidii loo badbaadin lahaa falankiisa hala galo waa amar aan dul dhigayo mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waa amar aan dul dhigayo mudane ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa amar aan dul dhigayo Cumar Finish gudoomiyaha mataqaanaa gobolka Banaadir sida ugu dhaqsiyaha badan halaga falceliyo oo mataqaanaa amniga muqdisho hala sugo al-shabaab wax la dhaho ma jiro waynu ognahay waa mataqaanaa Kenya weeyaan al-shabaab haddaad maqashaan falkii shalatolana waxaa ka dambeysay Kenya ragga soo abaabulay iyo mataqaanaa qarashka ku baxayayna waynu ognahay mataqaanaa inay Kenya imaaraadka yihiin shacabka ummadda Soomaaliyeed dalkiina duulaan baa lagu yahay idinkana duulaan baad ku noqoteen duulaankii baa dhinaca ka qayb qaadateen waa ceeb soo waxaan leenahay calankaas ha jiro oo ha joogo shacabkayga ummadda Soomaaliyeed guul iyo gobonnimo idin rajaynayaa insha Allah waynu ka baxaynaa waynu soo qabsanaynaa dawlad wanaag iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo mataqaanaa daacadnimo aynu garab istaagaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.